wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muumin Seed, wasiirka wasaaradda warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin ayaa kulan la qaatay guddiga amniga gobolka Awdal iyo sidoo kale guddiga ka hortagga cudurka coronavirus ee gobolka Awdal. kulankaas oo ujeedkiisu daarnaa sidii loo xoojin lahaa nabadda gobolka Awdal iyo sidoo kale sidii looga wacyigelin lahaa bulshada faafidda cudurka coronavirus. waxaana ugu horeyn ka warbixiyay kulankaasi gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali. waxa uu yiri shir baan ku qabanay laba jeedo kala jeeday mid nabadgelyada ah oo wasiiradii iyo guddigeedii nabadgelyada gobolka aanu ahayn wasiiradu ay maanta nagala joogeen 3 wasiir oo markii horena u yimid tacsida arrimo yar oo ka taagnaa gobolka nabadgelyada waanu iska wareysanay waanu ka shiray waanu ka wada hadalay waamaanu isla gaadhnay wixii waajibaadkii waanu kala qaadanay. mar labaad waxaanu galnay shirkii caafimaadka oo aanu khaasan ka hadlaynay COVID-19 waxaanu bixinay wixii warbixin gobolka yaala wasiirka iyo wixii dul naga xidhan wasiirku nooga soo dhameeyo baahiyaadkayagana waa nuu dhiibnay duruufta taalana waa nuu sheegnay isaguna wixii uu nooga jawaabi karayay imika la heli karayay wixii aan la heli karaynina waxaanu gobolada la qabnay dalka waanu ku kalsoonahay wixii kale aanu qabsan karanana iyana waajibaad waxaanu ku kala qaadanayna. sidoo kale waxa geestiisa isaguna hadalka qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi. ogtiinda xanuunkani marba marxalad buu u gudbayaa marxaladda hadda lagu jiraa waa khatar badan oo ah in xanuunku uu jiro inuu ku fidayo dad bulshada dhexdeeda taas markaa waxa u baahantay inaanu fadhi adag laga yeesho oo laga wada hadlo oo diyaar garowgii horena talaabo lagu daro wax kale isla garanay oo horena loo siyaastay cusbitaalka Alxayaat oo noqonaya goobta lagu daweynayo bukaanka. halkaana waxaanu ballan qaadnay in wasaaradda ahaan wixii ay u baahnaayeen qalab caafimaad ama lagu daweeyo qofka bukaanka ama shaqaalaha caafimaadka isku ilaaliyo inaanu siino waxna waanu siinay. taana waxaan codsan lahaa culimadu inay go'aan geesinimo la qaataano dadka ay bulshada ay arinta u sheegaan wacyigelintana ay qayb ka noqdaan masaajidada de kulay wali ma baxine ay dadka ka wacyigeliyaan. taasi waxa ugu muhiimsan ee lagu badbaadaya waxa weeye dadku inay talooyinka raacaan ee tilmaamaha caafimaadka iyo in gobol walba uu isku tashado. halkaasay runtu taalaa waxa weeye dawladda magaalada Boorama hadal yar waxa taagtaagan arrimaha la xidhiidha ammaankuna cid kasta uu saaran yahay dadaal baa la wadaa dadku haddaan iyagu ilaashanin nabadgelyadooda cid walaalna ma jirto. taana in qofka xun aynu runta u sheegno aynu iska qabanno cidda wanaagga wadanaha lagu garab galo taasa waxa kasto aynu qorsheysanay iyo wanaag kasto aynu ka fikrayna nagu hirgelaya. waa Samiixa Maxamed Cilmi TV-ga qaranka magaalada Boorama.